ومعصنتها نورو doorashooyinka dawladaha hoose ka bilowday wadankan Turkiga saaka aroortii hore ayaa waxa la sheegayaa intoodii badnayd in ay soo gabagabowday saacado kadibna in ay soo xirmi doonaan ama soo gabagabowi doonaan si kama dambays ah doorashooyinkan ayaa waxa ay noqonayaan doorashadii ugu horeysay dhaxda ama ku soo aada waqti wadanka la ansixiyay ama la meelmariyay nidaamka loo yaqaano nidaamka madaxweynenimada marka doorashadan ayaa xiiso badan kale wadankan Turkiga aadna indhaha loogu hayaa saacado kadibna waxaan sugaynaa sida ay kusoo gabagabowdo iyo waxa xiga talaabadii saaka soo bilaabatay doorashada codbixinta marka doorashada yaa ku tartamaya xisbiyada isku haya waa kuwe nuurow ilaa 12 xisbi ayaa si guud ahaan ugu tartamaya waxayna kala yihiin laba kala isbahaysay ay samaysteen labada isbahaysay ugu xoogan ay maanta tartanka adag u dhaxmarayo waxay kala yihiin xisbigan AK Party la yiraahdo oo uu hogaamiyo madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan iyo xisbiga qowmiga ah oo labadii doorasho ugu dambeeyay oo si dastuurka lagu bedelayay iyo midii madaxweynenimo sanadkan soo dhaafnay bartamihiisii dhacday labadaaba ay isbahaysi ahaayeen oo garab ah iyo qolyaha kale la yiraahdo jumhuuriyiinta ama maaragtay taageersan ninkii Turkida cusub aasaasay Kemal Atatürk ahaa iyo maaragtay xisbiga la yiraahdo Party xisbi la yiraahdo oo ka go'ay xisbigan qowmiga ka go'ay iyo qolyaha kurdiyiinta ah oo dhinaca labada garab oo maaragtay ay doorashada ama ciyaarta inteeda badan ay u dhaxaysaa doorashadan waa garta marka dadka siyaasadda Turkiga ka faalooda waxay leeyihiin doorashadan waa tii ugu adkeyd ee uu wajaho madaxweyne Erdogan tan iyo intii uu talada la wareegay 2002 marka qolooyinka ka soo horjeeda waxyaabaha ay qalqiilka ku gelinayaan maxaa lagu sheegayaa maaragtay doorashada Turkiga nuurow waa sida aad sheegtay oo doorashadani sida aan sheegnay waa doorashadii ugu horeysay ee ku soo aada nidaamka madaxweynenimo intii la ansixiyay kadib doorashadii ugu horeysay ee dawladaha hoose noqonaysa waa doorasho aad iyo aad maaragtay u adag oo ay labada isbahaysi isku waajahayaan waxyaabaha marka ugu waaweyn ee cabsida laga qabo in ay maaragtay doorashada ay magaalooyin waaweyn ku lumiyaan xisbigan talada haya waxaa kamid ah lacagta wadankan Turkiga ama dhaqaalaha guud ahaanba oo sanadkii aan soo dhaafnay 2018 bilihii ugu dambeeyay uu ku dhacay qiimo maaragtay qiimo aad u weyn oo lacagta liiradu ay dhumisay 40% bilihii la soo dhaafay sanadkii aan kusoo gudubnay taasi waxa la dhihi karaa waa mid kamid ah kuwa ugu waaweyn maaragtay xisbigan muddada talada soo hayay ku noqon karta maaragtay weeqi karta mid kamid ah weeyaan dhanka kale waxaa jirta eedo loo soo jeediyo xisbigan ilaa intii afgambigu dhacay in ay xadgudubyo dhanka xuquuqul insaanka inay ka dhaceen gaar ahaan dad aan dambiye loo haynin iyo dad maaragtay wariyayaal iyo dad xuquuqiyiin iyo in la xiray oo xabsiyaasha lagu hayo eedaha ay inta badan mucaarad ku soo jeediyaan kuwaas kamid ah in wadanka dhaqaalihiisa uu qiilqiil ku jiro marka arrimahaas ayaa ah kuwa ugu waaweyn maaragtay xisbigan talada haya maaragtay weeqi kara ama hoos u dhigi kara codadkii la filayay magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo Ankara ayaa la sheegayaa inay go'aan ka gaari doonaan guusha labada dhinac ee ku tartamaya mahmaha Turki ah ayaa maaragtay dhahaysay qofkii Istanbul ku guuleystay doorashada wadanka oo dhan ayuu ku guuleystay marka bal Istanbul noo faahfaahay ilaa iyo imika halkee ayay kala marayaan oo yaa la filayaa in ay guul ka keenaan magaalooyinka waaweyn oo maaragtay lagu qiyaaso in ay dadka mujtamaca ama bulshada Turkiga intooda badan ay degan yihiin waxa weeyaan tartanku waa adag yahay in la saadaaliyana dadka siyaasadda indhayay waxay leeyihiin aad ayay u adag tahay xisbigan talada haya magaalada Istanbul oo ah magaalada ay ku nool yihiin Turkida qiyaas ahaan 3 meelood meel dad ku dhow ayaa lagu qiyaasaa in xataa guud ahaan population-ka ay ka soo ag dhawaan karaan marka waxay u sharaxeen dadka ay isleeyihiin bulshada dhexdeeda ayuu sumcad ku leeyahay wax qabad la arki karana wuu soo qabtay intii xisbigani jiray waa ra'iisul wasaarihii hore ahaan